guriga Abubakar Sidiiq ayay dumiyeen si looga dhiso dhismo weyn oo uu leeyahay hoteelka caanka ah ee Hilton. Gurigii Khadiija bintu Khuwaylid Allah ka raali noqday waxa ay ka dhigeen musqulo guud oo hadba qofkii rabaa uu ku xaajo guto. Haddaba sidee magaalada barakaysan ee Makal Mukarrama isugu rogaysaa magaalada 28aad ee ugu dadka badan wadanka Mareykanka ee Las Vegas? Xajku waa mid ka mid ah shanta tiir ee Islaamka, waana waajib saaran oo laga rabo qof walba oo muslim ah oo awoodo inuu guto. Muslimiintuna waxa ay rumaysan yihiin in ku socoshada tallaabadii Nabi Ibraahim iyo booqashada meelihii uu maray inay leedahay dambi dhaaf iyo istaahirin weyn. Xajku waagii hore waxa uu u furnaa dhammaan dadka muslimiinta ah, balse dhammaantood awood uma lahayn inay soo gutaan xajka. Kontameeyadii qarnigii hore tirada dadka dibadda uga yimaada xajku ma aanay dhaafi jirin 100,000 oo xaaji, balse maanta oo horumar fiican laga gaaray dhinaca isgaarsiinta, gaadiidka iyo balaarinta deegaanka ee ay samaysay xukuumadda Sacuudigu daraadeed, waxa ay magaalada Makal Mukarrama qaadi kartaa 3 milyan oo xaaji. Tirada ayaa kor u kacaysa kadibna ribaxa ama faa'iidada ayaa kordhaya. Waagii hore waa loo sinaa labiska, cuntada iyo dhibaatada safarka iyo socdaalka. Maanta sidaasi ma jirto. Waxaa jira xaj la yiraahdo xajka 5 xidigood ama 5 xidigood leh. Looma baahna dib iyo safar dheer. Wax walba waa diyaar, waana lagu adeegayaa. Uma baahnid inaad xaramka degto si aad ugu dukato salaada jamaacada. Fadwo yar oo uu soo saaro wadaad Sacuudi ah ayaa ku fasaxaysa inaad qolkaaga isaga dukato, isla markaana aad helayso ajirka salaada jamaacada iyo kan salaada xaramka. Haddii aad ka mid tahay dadka xilalka sare haya ee adduunka, adiga iyo dadka gaarka ku ah waa wada xajinaysaan. Waxaana idin gelbinaya koox aad u ballaaran oo ka tirsan ciidanka ilaalada boqortooyada. Taasi ma aha mushkilad weyn. Madaxdu in la ilaaliyo waa u baahan yihiin. Dadka hantiilayaasha ahna xaq ayay u leeyihiin inay ku raaxaystaan maalkooda. Dhibka weyn ee qarsoon waa in magaalada Makal Mukarrama aanay ahayn tii ay awoowayaasha yaqaaneen. 95% meelihii muqaddaska ahaa ee magaalada Makal Mukarrama waa la baabi'iyay. Guud ahaan 20kii sano ee tegay, gurigii Khadiija bintu Khuwaylid Allah ka raali noqday waa la dumiyay, waxaana dushiisa laga dhisay dhisme ka kooban 1400 oo musqulood. Guriga Abubakar Sidiiq waa la dumiyay, waxaana dhulkii laga dhisay dhismo weyn oo uu leeyahay hoteelka caanka ah ee Hilton. Qalcado waaweyn oo taariikhi ah kuna qoran dhaxalka iyo raadka taariikheed ee Islaamka ayna diiwaan gelisay UNESCO waa la dumiyay, waxaana booskoodii laga dhisay taawarka saacadda Makal Mukarrama oo aad u weyn. Gurigii uu ku dhashay Nabi Muhammad nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee waxaa loo rogay suuq xoolaha lagu iibiyo. Mar kale ayaa laga wareejiyay suuqii xoolaha, waxaana laga dhigay maktabad guud oo aan la ogolayn in la galo. Waxaa la dumiyay tiirarkii taariikhiga ahaa ee gudaha xaramka oo u laabanaya xilliga Cabaasiyiinta. Makada maanta jirta waxa ay u eg tahay magaalada Las Vegas marka la eego dhismayaasha waaweyn, sicir bararka iyo nolosha qaaliga ah. Hal habeen oo kali ah haddii aad ku qaadato deegaanka saacadda Makka oo kulaalaya Kacbada, waxa aad bixin doontaa lacag ku dhow $5,000 xilliga xajka. Sacuudigu waxa uu ku doodayaa in ujeedada ka dambaysa dhalan rogga dhismayaasha iyo raadadka taariikheed ee Makal Mukarrama inuu yahay in magaalada Makka laga dhigo magaalo fariid ah. Waxa suuragal ah in maankaaga ay ku soo dhacdo su'aal ah: waa maxay xiriirka ka dhaxeeya fariidnimada magaalooyinka iyo duminta raadka taariikhda iyo dhaxalka? Waxa aan dabool qaadaynaa hadda wax aad muhiim u ah, waliba aad halis u ah. Magaaladan waxa lagu magacaabaa Darciya. Waxa ay ahayd caasimadii hore ee dowladda Sacuudiga oo sanadkii 1818 uu riday ciidanka maamulkii Cuthmaaniyiinta oo maanta ah Turkiga. Maanta dowladda Sacuudigu waxa ay wadaa qaarkiisna fulisay olole dib loogu adkeynayo goobaha dhaxalka iyo taariikhda magaaladan Darciya, waliba si garasho iyo fariidnimo ah oo waafaqsan xeerka UNESCO. Waxaa dib loo hagaajinayaa iyada oo aan waxba laga bedelin dhismayaasha iyo guryaha waaweyn ee magaaladan, kuwaas oo ay ku shaqayn jirtay dowladdii hore ee Sacuudigu. Waxaana laga dhisayaa madxaf weyn oo lagu dhowro laguna ilaaliyo wixii raad iyo taariikh ah. Sababta oo ah halbeegyada dhaxal dhowrka ee UNESCO waa aqoonsan yihiin Darciya, balse ma aqoonsana Makal Mukarrama oo ragga ugu waaweyn culimada Sacuudigu ay fadwo ku soo saareen in xitaa la burburin karo qabuurta asxaabta Nabi Muhammad ee ku aasan ama ku yaal Makal Mukarrama, iyaga oo daliishanaya
in lala dagaalayo bidcada shirkiga iyo qabuurta oo la caabudo halbeegyada UNESCO iyo digniinta ay ka bixisay duminta raad taariikh iyo ilbaxnimo bini aadamku leeyahay iyo carada Turkigu kama reebin xukuumadda Sacuudiga duminta qalcadda Ajyaad oo ka mid ah dhaxalkii ay Cusmaaniyiintu ka tageen haddaba boqortooyada Sacuudigu waxa ay ilaalinaysaa dhaxalka iyo taariikhda qoyska xukunka haya halkii ay ahayd inay ilaaliso dhaxal ay muslimiintu ku faanaan oo ay wada leeyihiin wax ka bedelidda dhulka qiblada diineed ee muslimiintuna si looga dhiso tiro hoteelo ah oo u qaabaysan habreer galbeed kuwaas oo qarka u saaran inay qariyaan Kacbada oo dhan waxa ay ka dhigan tahay duulaan dhinaca taariikhda ah mahmaha carbeed ayaa leh reer Maka iyaga ayaa ka yaqaan laababka iyo togoga Maka waa yaqaaniin hadiiba ay jiraan laababkaasi